aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha booqashadiisii ugu horeysay inuu ka bilaabo magaalada Baydhabo oo ahayd magaalooyinkii ay ka mid ahayd maamuladii xoogaa ay tirsanayay macnaha la socday maamulkii hore in uu ayaga dejiyo laabta u qaboojiyo waqtiga maaragtay macnaha ay u harayna ay dhameystaan inuu ku laab qaboojiyo ku dejiyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa madaxweynaha dib u heshiisiintaas uu hore u sii wado asagoo lagu yaqiinay markii horeba inuu semberi dadka nin u dhimriya oo dib u heshiisiintaas ku socda iyo isku tashi oo hore ugu caanbaxay haddana waxaan leenahay madaxweyne hore uu socdo intaas waana ku mahadsan aad iyo aad waa bilaabay waana sii wadaya insha Allah sida dhuusamareebo kale iyo meelaha kale oo gobolada maamulada kale ah waxaan rajaynaynaa inuu madaxweynuhu si wanaagsan oo habsamidii macnaha waxqabadkii hore oo lagu yaqiinay inuu hore u socdaan soo dhaweynaynaa waana ugu mahadcelinaynaa insha Allah bismillaah waxaa loo baahan yahay ra'iisul wasaare la shaqeeya ee aan gadaal laga riixayn asagoo fikirkiisa iyo macnaha aqoontiisa iyo madaxweynaha macnaha la shaqeeya ayaa loo baahan yahay laakiin nin ka digtoonaadaan leeyahay madaxweynuhu nin fikir kale ama ku shaqeynaya ama asaga yacni hawl kale oo policy yacni siyaasad kale ay ku dhex jirto ha iska ilaaliyaan leeyahay waana ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha inuu ra'iisul wasaare la shaqeeyo oo dawladnimada hore ula wada inuu magacaabaan ku soo dhaweynayna madaxweynaha waxaan u baaqayaa 4 sano hore soo shaqeeyay dadka Soomaaliyeed 4 sano hore uu soo shaqeeyay 5 sano oo ka dambeysay 5 sano wixii la arkay wax ka bedelan inuu ummadda u keeno di ilaahay yiraahdo 4 sano hore lagu yaqiinay dib u heshiisiinta iyo isku wadka dadkana uu ku soo celiyo sidii hore ummadana uu sidii uu shaqeyn jiray uu shaqeeyo aan ilaahay idinkii aan ka rajaynayna insha Allah Bimalow Center moolka Bimalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa ها moolka Bimalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalow Center moolka Bimalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimalow Center xarunta ganacsiga ee Bimalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimalow